أبدي أسمع صوت عيني ولو فرها نقول كذا وحويان أنا يدي وحباش كتير كذا يود لا أبدي كيف تاتك ولا ما هذا كنا نبضنا صبضنا أبدي لا أبدي مركا حالته عادي ويان تعذوري لأنه ويقول هذا بعض حاسس صوت بتاعي أيها بارتانا كواينا سيدو حول عالي عيدا كتب أيها هذا اللي ما هو لي بس عاوز عليه xaaladahan ugu dambeeyay dhiig ku daatay dadka lagu laayay oo beelaha ama colaadaha beelaha ku salaysan bal khasaarihii ugu dambeeyay dhibaatooyinkaas dhacay dadka ku dhintay tiradooda waa imisa iyo dhaawacba shay ugu dambeeyay shan ruux baa ku dhimatay ilaa dhowr ruux kale waa ku dhaawacay niman waysan milishiyada asdaafiyay ciidamada lagu saaray iyo baaritaano iyo hawshaas wax laga qabto ciidamadii iyo hawlwadeenadii halkaas loo saarana weli waa hawsha ku daba jiraan hay'adaha amniga ayayna gacanta ugu jirtaa markay soo gabagabeeyaan baaritaanadooda lana helo cidda arrintaas fulisay iyo ujeedada ka dambaysa hadday ahna qabiil tahay iyo hadday ay tahay wax kalaba markaasaa soo bandhigaynaa sharciguna uu wax ka qabanayo dhinaca wax ka qabashada maamulka ka maamul ahaan waa ka gaabisan ma dhihi karaa wasiir inaad wax ka qabataan oo beelaha maleeshiyaadka dagaalamaya aad kala dhex gashaan maya laba dhihi karo waa ka gaabsan haddii ay jirto ciidamada sor fadhiya oo laba beelood ama la gurguruuba oo dagaal jiro oo wax laga qabo waayo ayaa markaas ama gaabis loo macnayn karaa ama sigaa loo macnayn karaa arrintan waxa wey waa arrimo soo booda oo shutaysi ah hadda shutaysina waa garan kartaa markuu dhaco unbaa la arkaa sidaas ay tahay haddana deegaanka galmudug intiisa badani aada bay uga nabdoon tahay waxaas marka labada shil haata isdaba xigay oo weliba isku aagag isku dhow ka dhacay waxay ahayeen laba shil oo fool xuno ugub ku ah deegaanka hab argagixisana wax u fuliyey marka habka loo dabagalay ama loogu tala jiraayna waxa wey ama tii hore ama mid hadda jirtaana hab dawladaysan oo la rabo in la fariisuuliyo lana ogaado haddii ilaahay ku imaayo si rasmiya ujeedada ka dambaysa iyadoo loo malaynayo in ay reere ka dambeeyaan ayaa waxay noqon kartaa bele kale oo galmudug nabadeeda iyo hoggaankeeda waan gartay marka wasiir arrintan si wax lagu qabto maxaa qorshe cad oo dadka aad u sheegaysaan maamulkiina dhinaca siyaasaddu ku mashquulsan yahay haatan madaxweynihii uu xoogga lagu saaray siyaasadda haddan Soomaaliya ka taagan haddana waa kan dhibku marka la soo laabtay oo dhiig ku daadanayo colaadda dadka u dhaxaysa gobolada dhexe maxaa qorshe oo talaabo cad oo aad hadda idinka qorshaysan ka dawlad ahaan qorshuhu waa iska cad yahay qorshe waa mid maamulka u yaala oo sida inaan nabadda isku dayno inaan ciidamo goobi ku saarno inaan baartaan la samayno inaynu cadaaladda dhulkeena wixii waxaas sameeyey qorshaha kale waxa weeye in bulshada la abaabulo oo isku tashi laga sameeyo oo beeleedka hab beeleed ay dowladda ula shaqeeyaan beelaha ay kasoo horjeeda la fududeeyo si loo shaqeyn lahaa loo wada wajahnaado mas-uuliyadda la iska saaro nabadda iyo deegaanku sida uu lagu deeqo marka hawlahaas oo dhani waxa weeyaan hadday noqon lahayd inaanu beelaha abaabulo iyo hadday noqon lahayd dowladdu inay guddiga giis ay samayso intaba waynu ku guda jirnaa ilahina waxaynu ka rajeynaynaa in habka iyo hanaanka aan qalbiga ka jecel lahay ficlaana anu lagu guuleeyo dadka ishaya iyo waxyaalaha dhacaya waxaan ugu baaqayaa waxa weeyaan markii dhowr jeer la islaayo deegaanka lagu kala cararo oo balaaya dhacdo ayaa mar walba waxaa soo baxa dan la yiraa waa waxgarad oo hadhow jirayaado waa beelo walaalaha oo diriraad iyo kala qaadanaya marka waxaan leeyahay beelo walaalaha oo degan intay diyo kala qaadanayaan dantooda ha mideeyaan deegaankana ha ku midoobaan daaqsintana ha wada ilaashadaan dhalashadana ha wada ilaaliyaan inaysan kala guurayna ha xisaabiyaan inay musligiinna ha xisaabiyaan inaan cid kale umaqnayna ha xisaabiyaan hana laga gudbo hadafka ah markii boqolaal qof la iska dilo waxgarad baa diyo ku kala qaatay jeel ku kala xaraysay nafta dhibaatada marka hore laga hortagaa in la daba jooga dhibaatada oo xeer laga dhigto dhiig dad oo la laayay in xaladhalay laga dhigo marka hore aan laga hortagin arrimahaas waxaan leeyahay allah in ka soo aruuriyo duqeyda iyo nabaddoonada sabadoonada deegaanka waxaan leeyahay ficilkaas waa inaad ku bedeshaan kahortaga dhibaatada dhinaca amniga markaynu eegno
maamihir soo dhaafay waxaa jirtay cabsi la xiriira gobolada dhexe qaar ka mid a gaar ahaan deegaan u dhow magaalada dhuusamareeb in dadku ay ka cabsi qabeen al-shabaab oo la sheegay in dhaqdhaqaaqyo ay halkaas ka wadaan bal ka warran arrintaasi horta in badan oo kamid a buunbuunin baa ku hoos jirta oo waxa weeyaan deegaan walba waxbaa ay iska aaminsan yihiin deegaanahaas shabaabka aad baa looga neceb yahay loogana hortagaa marka marmar baa dad mashruuc ka dhigaana waxaa la yidhahdaa airboortka usoo dhawaadeen iyo magaalada gees ka soo galeen iyo marka waxyaa lagu dardaray ciidamo ama dad noocaas u halaysan oo deegaanka barooyin ku hayaa ma jiraan waa nabdoonya waana xasiloon yahay hababkaas toonaadaas iyo waxaa kalaada waa waxa in kale loo baahan yahay laakiin hadda ma jirto cabsi ku wareegsa deegaankaas